السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديل kusoo dhawaada Arif Media TikTok qaybtiisa TikTok fiidiyogan waxaan ka hadli doonaa mushkilad dhanka social media ku dhacday company-ga weyn ee Facebook waxay soo saartaa barnaamijyo badan ama ay maalgeliso ama kamid ah groups-ka loo yaqaan Facebook marka barnaamijyada waxaa kamid ah Facebook aan wada naqaano oo qaybtan isticmaala Facebook app-ka iyo sidoo kale Messenger-ka waxa kale oo soo raaca oo shirkadu ay leedahay oo ay bariya dambe iibsatay WhatsApp sidoo kale Instagram-na way iibsatay oo iyada leh haddaba shirkadan gebi ahaanba barnaamijyadeedii ma shaqaynayaan saacadahan waxa laga yaabaa fiidiyowga xilligan aan duubayo in aanay ku shaqaynayn markaas barnaamijyadaas waxyaabaha mushkiladda ku dhacday maxay tahay shirkaddu waxay sheegtay adigu abaaro sida la sheegayo 6dii maqribnimo meelahaas markii gaadhay East Africa laakiin ciladan waxay haysatay ilaa saaka subaxii ayaa qaar sheegayeen warbaahinta qaar ay sheegayeen oo ilaahay ciladaas way jirtaa sidoo kale website-yada qaar waxay wax qorayaan in mushkiladan ay mushkilad runtii aad u weyn tahay xalka kaliya ee lagu xallin karaana uu yahay in aad Facebook ka warsugto iyo inay xaliyaan waxaan arkayay ninkii Facebook lahaa Mark Zuckerberg oo apologize bixinaya iyaga laftarkooda shirkadaha waxay ku soo qorayaan arkayay Facebook oo iyaga Twitter-doodii ku soo qoraya macaamiisha waan ka raali gelin doonaa ama ka raali gelinaynaa sidoo kale waxaa jirta waad aragtaan Facebook waa kuwan Twitter ku soo qorayaan we are aware that some people are having trouble accessing our app and product marka waxay leeyihiin waxaan ka warqabnaa inay jiraan dad trouble access ku dhacday inaanay geli karin ama isticmaali karin apps-kii iyo waxyaabahan soo saari jirnay waxay leeyihiin we are working to get things back to normal as quick as possible wax walba waxaan ku soo celin doonaa inay shaqeeyaan sidii normalka caadiga ahaayeen waana ka raali gelinaynaa we apologize for any inconvenience marka inconvenience waxaan ka raali gelinaynaa cilad kastoo dhacday ama wax kastoo dhacay waana ka raali gelinaynaa laakiin waxaan ognahay social media-ha mushkiladahan ku dhacaya social media-ha company kasta oo weyn mushkiladaha ku dhaca waa mushkilad runtii aad u weyn Facebook barnaamij runtii aad u yar maaha billions qof oo dunida dacaladeeda jooga ayaa isticmaala marka mar walba waa suuragal inay cilad ku timaado ama la xaliyo ciladaha inta ugu badan ma aragno laakiin ciladani maanta common ay noqoto halkan waad aragtaan qaybtoodii Twitter-ka oo kan ku soo qoraya WhatsApp iyaguna waa la mid Instagram laftirkiisu waa la mid sidoo kale waxaan arkayay dad caan ah oo leh waxaanu kala garaynaa shaqaale kamid ah shaqaale Facebook u shaqayn jiray waxaanay noo sheegeen inaan xitaa saaka aanay shaqadoodiba gelino oo ay u shaqayn waayeen ifan kaararkii ay ku geli jireen shaqada oo dee qofka markuu meel iska furay kaar yar bisu marka waxa laga yaabaa xitaa ifan waxa la sheegayaa sistemadii ay barnaamijka dhanmay ku shaqaynayeen ama sarfaradii ku shaqaynayeen inay doongaroobeen sidoo kale waxaa jira waxa inta ugu badan ay sheegayaan ee shirkadda lafteedu ay sheegtay waxa kamid ah sarfarka doongarooba waxa kamid ah wax loo yaqaano sarfar loo oran jiray DNS-ku muxuu taraa waxa loo yaqaano dadka kale IT-ga ayaa garanaya domain name server baa loo yaqaana waa serverka translate gareeya magacan tusaale facebook.com anaga waxaan naqaanaa facebook.com waan naqaanaa laakiin facebook.com computer system kuma yaqaano oo number kale ayuu yaqaana so IP address ayuu isu bedelaya marka domain name-ku wuxuu bedelaa ama DNS-ku bedelaa magacan adigu aad soo qorayso ayuu wuxuu siinayaa IP address u dhigma marka serverkii translate gareynayay DNS-ka ahaa ayaa doongaroobay so marka barnaamij kasta oo ku shaqaynayay ama shirkadda guud ahaan barnaamijyada ku shaqaynayeen oo dhan ayaa khad ka baxay taasina waa big problem weeye marka hawlahaas oo dhan ayaa jira kolley xalka kaliya la sugi karayaa ama xalka kaliya lagu xallin karayaa waxa weeye ama aad barnaamijyada ku isticmaali karayso kaliya inaad sugto oo shirkadda aad ka warsugto ayaa noqonaysaa marka sidoo kale waxyaabo badan warshado badan ummadii ilaah ka qaadanaysa kulley Facebook ma shaqaynayo imika iyo barnaamijyada kale company-gaasi lahaa sidoo kale waxa la sheegayaa in router-rada qaar oo dunida dacalada qaar kala yaaleen inay shaqayn waayeen sidoo kale waxyaabaha ugu waaweyn ee ka qayb qaata waxaa kamid ah satellites-ka oo ciladan ma haddii xataa soo kale ay saako kala dhacday waxa laga yaabaa meelaha qaar inay ku baahin oo aanay satellite-du sidoo laftirkooda inaga waxa laga yaabaa inta ugu badan East Africa waxyaabaha ugu weyn laga dareemay ama ciladu markii ugu horeysay faaftay ama dunida laga dareemay waxa ahayd 6dii maqribnimo abuura ayaa laga dareemay
marka Facebook laftarkoodu waxay soo qoreen Twitter ku soo qoreen markay abaar ahayd adigu 7 iyo barkii ku dhawaad fiidnimo East Africa ayay soo qoreen apologize marka insha Allah waan ka war sugi doonaa waana ka warqabi doonaa halka ay ku dambayso laakiin waxaan ognahay inay laga yaabo xitaa inay qarinayaan oo laga yaabo dad hackers inay jabsadeen sistemadooda oo ay waxyeeleeyeen imika haddii aan laptopkayga soo furo oo aan isticmaalo bal tijaabi ciladan bal waxaan soo furayaa browseradan isticmaalaa mid ka mid ah kadibna facebook.com ayaan ku qorayaa ama fb.com internet leh you see here your connection buu leeyahay imikaani connectionkayga ka hadlaya laakiin okay yes this site can't be reached ama lama gaari karo marka waa kan DNS problem finish marka domain name-ka ayaa problem ku dhacay oo ma gaarayo ma soo qaban karayo means waxa weeye wax ka dhigan yahay ma jiro ama soo qabanay way lama garanayo imika facebook.com ma ban garanayo system haddaynu u nimaadno warbaahinada aad ka waaweyn ee dunida laga yaqaan waxa ka mid ah New York Times waxay sheegaysaa in gabi ahaanba Facebook uu downgrade marka waxay leedahay Facebook and its family apps including Instagram and WhatsApp went down at the same time Monday month marka way dhaceen bay leeyihiin ama way istaageen down way istaageen sidoo kale waxay sheegayaan waxay dhahaan Facebook including Instagram iyo WhatsApp waxaas oo dhan iyo Oculus intuba error bay soo dhigayeen error around marka waxay soo dhigayeen ilaa 12:40 am marka Eastern time xagga galbeedka bariga time-ka bariga marka waxa weeye barqadii maanta haddaynu marka eegno East Africa Down Detector waa barnaamij ama wax weeye website lagu ogaado in website-yada ama sistemada dunida shaqeynaya dhaca marka waa kan way downgrade hoos u soo dhacay waa kan xariijinta waa aragtaan saddexdan waa kuwan in waxyaabo ugu badan oo saameeya wax kamid ah dadka giimanka ciyaari jiray iyana waxay sheegeen inay raadinayaan meel Facebook ka duwan waayo lacag baa ka soo geli jirtay dad viewers ay heli jireen haddii waxay isticmaalayaan buu downgrade iyo irsaaqadooda way istaagaysa so marka waa mushkiladaha uu leeyahay qofku inuu addicted ku noqdo social media oo dhan ama uu ka raadiyo inuu irsaaqad kala soo baxo marka waxay dhahaan waxaan raadinaynaa meel ka duwan meesha waxaan arkay isaguna mid kala soo dhigay oo mar leh gabi ahaanba aanu markuu istaagay waan iska saaray 3 barnaamij Facebook waan uninstall baan idhi oo waan ka saaray mobilkayga marka mar walba aan ka dugsanaano social media waxaan soo jeedin lahaa dadka sida addicted ku noqday ee noloshooda social media ku xiray mushkiladda waxa laga yaabaa maanta kale inay meel kale ku dhici karto imika Google iyo waa shaqeynayaan kambaniyada waa Google waa shaqeynayaan Telegram waa shaqeynayaan TikTok waa shaqeynayaan laakiin waxa dhici karta in ciladani ay ifan xitaa adiga kugu iman karto so marka waa inaad ka taxadirto oo ayna ka digtoonaano iyo whole social media habeen wanaagsan waqti wanaagsan share garaya assalaamu calaykum